isla qodobka toddobaad baa wuxuu sheegayaa maalgelinta iyo in la hubiyo loo magacaabo hay'ad madax bannaan oo ah hanti dhowr wuxuu qeexayaa xeerka badankiisa sharciyada iyo sida loo siinayo bangiyada waxa muhiim ah mar haddii sharcigii iyo bangigii laga hadlayo bangiyadu servicekii adeegay bixiyaan dadka ama ganacsato dhexe ha ahaadaan ama danyar ha ahaadaan ayay lacago deyna siiyaan waxaanan wada ognahay in bangi walba sida uu doono u bixiyo 15% 15 sideed intuu doono marka waxaan jeclaan lahaa maadaama xeerka gacanta lagu hayo xeerka inuu noqdo midaan shacabkana ugu adeegno oo loo sameeyo qiimo sugan oo bangigu uu deymaha ku bixin karo oo laga daayo sida bangiyadu maaragtay ay dadka ugu takrifalaan iyagiina mar haddii sharcinimada iyo dawladda loo ilaaliyay iyagana laga ilaaliyo shacabka oo la fududeeyo ama la cayimo qiimo sugan oo deymaha ay bixinayaan ama lacagaha ay bixinayaan korsaarkooda uu yahay wax cayiman aan la dhaafi karin